marka 30 sano oo idin la joogay iyo 30 sano oo dawladda u shaqeynay iyo intii aan shaqaale ahaa iyo intaan wax bartay iyo wixii dawladda aan arkay ayaan idin taabanaya maxaa jira 30 sano shaqeynay 15 sano kamid ah madax baan ahaa madaxda ugu dhow dadka dawladda ah marka inaan idin taabtaan rabaa aan idin tuso Soomaaliya ma ahayn waxaan hadda aan nahay ma ahayn marka waxaan rabaa inaan idin taabto 59kii markii aan shaqaalaha dawladda noqonay meeshaan ka bilaabo meeshii la sheegay waqtigii ugu horeysay la dooranay baarlamaanka ugu horeeyay ahaa hadda emotion wax yaani dad fiyooba ma ahayn saan u waalay maxaa jira waxaan ku dhex jirnay Talyaani iyo gumaysi kale waxay noo ahayd maalin waqti weyn magaalada farxadaas iyo qiimahaas aan wadnay oo qabnay anagu reer magaal baan ahaynay baadiyaha laga ma qabin seemaba garanay wax socday marka saas loo qaybsanay waxaan qabnay yaani dad hawle qiimo leh oo doonay dawladnimada waxa noo soo 60kii anigu waa yaraa ma aqaan hadda ma idin sheegay waxaan jiray laakiin waa noolaa oo qof dadka magaalada ka mid ah waxaan wahaa maadaama aan boosada ka shaqeynayay qoladii ugu horeysay oo wafdigii ka yimid hadda Soomaaliland baan dhihay laakiin Noordkayga iska wadan waxa aqoon jira waagi ayay iga dhagan tahay qoladii Noord baa ay qabo Noordka yimid yaani markii ugu horeysay arkay taarar baan maadaama taarar boostaal ah taararkan u geynaynay waxaa la dejiyay baarlamaanka meeshii ahaan jirtay baarlamaan sargudoon hadda aan baabaaday ayaa la dejiyay waxaa keenay oo badi ayaga akicina anagana aan si aad u aqoon waxa ahayd 56 ba hawd ayagoo soo jeeda la wareejiyay waa daris bay leeyihiin waa arkay wixii dhacay waxa 56 ayaa xeelay salaas intuu garbar maxay ahayd qabri dahrayn ayuu wuxuu ka yiri waryahay Soomaaliya hadda tihiin war bahweyntan soo galo hadda Soomaaliya waxaan niraano bahweyntan soo galo ma Ethiopia qaybteena ka qaat aray nagu sii kordhinaysa marka laakiin caradeen waa kala badnayd more nationalist wadanimada iyo waxa maxaa jira qofku hadduu xuduud la leeyahay balada kaaga dhow kaaga jacayl badan waad ogtiin Soomaalnimada waxa aad waxa reer magaalkeena iyo qoladaas reer baadiyaha dadka kale waxay ka ogaayeen malaha waxa 60kii marka la qaadanay meel secondary la yiraahdo ma qaanada waxay magacooda secondary la jiranagu wax loo bixi ma qaana ayaa calanka laga saaray calanka la saarayo ma ahayn anagu kaan haysanay wuxuu ahaa kii 6 bari ka hor laga saaray Hargeysa oo ka nasiib kana saara lahaa ayaa la keenay ayaga raggoodii baan soo saaray calankaas ayaan waxaysan markiiba Ethiopia aad bay arintaas u dhibtay Soomaalidii oo wada qeereysan maxaa jira waxa anaga dhigteena ku jira ayaguna dhihi jireen manilk markii Soomaalida qaybsanay inuu yiri yaani Soomaali ma aha wax nation liireedo ma aha waa qabaa'il isnacab xalaa waxa kaliya aaminsan yihiin Ethiopia loo yar u yihiin halkaas boqortooyada iyo boqortaan u yihiin caradaas ayadoo qabo ayay dhacday 63 waxa dhacday Ethiopia marka uu qaadan waayay inaan midowno oo midnahay oo wuxuu sheegay dagaalba ka soo qaadeen waxa isku keen aaday dagaalka markuu soo qaaday in West dalalka ay ku dajiyeen war kuwaan mar dambe isku mandareen maxaa jira ayagiina waa nala yaabeen asagiina waa naga baqay dagaal buu soo qaaday isla waqtigaas 63 waxa la dhiibay NFD oo soo jeedo 80% ay leeyihiin Soomaaliya rabna ballan laga qaaday Ethiopia inaan Soomaali midnimadii sii wada maxaa jira wax loo adkeysan kara ma waxay markaas isbedelay Cabdirashiid Allahu naxariisto Prime Minister buu ahaa wuxuu raajay inuu yiraahdo war dad baan ka haystaa ummad baan ka haystaa dalal baan naga maqan dalalkii West waxay yiraahdeen dhageysta adduunkan sidaa waa xaalad waxa la idin ogol yahay 3 dal baa idin shaqeynaysa Ingiriiska maxaa Mareykanka Jarmanka iyo Mareykanka iyo Jarmalkii kale Talyaaniga ciidamaduna intaas ka badan karaan
war hadda nin baan ugu soo duulayo nin baan haddana la qabsanaya maya taasaan ku xiray markaas waa marka anagana siyaasadda isbedeshay sidaan west oo hayna cadda Allah u naxariisto isagu nin wax waa taaliye ku koray oo qiimaheeda iyo qaarta westiga maxaa jira waxa labada lagu kala yaqaana westigu waa dimuqraasiya isbedbedel laakiin shuuciyada hadda tagtid ninkii madax noqdaa waa dijinaysa hees baa ku xigta marka anagu ma rabin oo diyaar maahayn diin ahaan iyo dhaqan ahaan dad furan baan ahayn laakiin qasab mar hadii loo tiiday ayay noqotay dawladda inay ku dhaqaaqaan waxaa la igu goostay Jamaal Cabdi Naasir ayaa buntuq yaraad xakiim ka nasiiyay waa xukunka buntuqa aan iskaga celinayn Ethiopia markay iskaga ma celin xoog aan lahayn laakiin waxay la yaabeen inaan meedka ka qaadan weyno qabiiladeena anagu isku sii jeesano ma noqon waa iska celina waana jaban wuxuu ahaa Cabdirashiid inuu yiraahdo election baan ku jirnaa doorasho wuxuu yiri doorashada hala baajiyo lama baajinay gacanna waa codkan ku bixinayna midna ku dagaalamayna marka halkaas yaani ahay waxaan ahayn marka waqtiga waxyaabo marka ugu horeysa Soomaaliya aan ahayn ilaa 67kii dad soo kacay awood badan ismidan midnimadooda haysta rabaa inay soo celiyaan bal arka Ingiriiska markuu naga goostay waxa uu badnaa yaani Somaliland hada ayaa u badnaa dadkii goyn عادفة سينويس وحرير goyn waxay wuxuu rabi lahaa inaan Soomaali hadaan nahay aan Commonwealth gallo oo maadaama anaga dhibaatada marka dawladnimo aan haysanay koortiyaal baan lahayn joornaalaan lahayn waxa dimuqraasiyada la yiraahdo dhan baan haysanay doorashadii ugu horeysay 67 Cabdirashiid uu bedelay ahad labadaba Allah u naxariisto waxay ahayd taariikh Afrika oo dhan laga xuso dawladda kaliya oo si nidaam la isku bedelay markaas ka caan baa bilowday markii ninkii ku dhagaabo waa ka fuqway laakiin waa bedelay waxaan 1967 waxaan noo yimid kan count oo markaas madaxweynihii dhisay Zambia wuxuu la yaabay cashadii marka loo soo dhigay aadan cadda iyo Cabdirashiid oo isaga fadhiyo oo qoslay markaas uu this is waxaan anagu jeclaanahay inaan noqon sidaan macna sharafta loo hayay laakiin maxaa markaas jiray nimankeenaas xoog galaho magac leh alaabeeni baan wadan waxa la yaabaysan wasiirkii yimaadaba reerkiisu la yimaada maxaa jira hadda wax kala ma leh baru doorasho raba waa inuu cid iska dhaqaaleeya corruption baa jiray aan ila loo dayin accountability ma jirin waa markaas isaga gaarnay doorashadii si loo galo xisbiyaal baa la furay dimuqraasiyad aan galayna 80 xisbi ayay gaareen ilaa calaamada la waayay mid dab midna biyo midna calaamad baa la waayay 80 baa gashay doorashadii corruption intuu gaaray ilaa kulligood 80kii intii ka soo baxdo la soo doortay xisbiga laga isku tagay maxaa jira meesha dadka lagu dhacay oo lagu boobay corruption salka ah halkaas markuu ku damnay waa 69kii ka caan ka dhashay oo feestadii waxaan isleeyahay masuq iyo duul oo ka xorooday bas way anaga kuwaas la tuuray dawladnimo security xoog leh corruption kii oo la qabtay waa markii ugu horeysay wafuud la diraayo xamar intay ka tagaan gobolada la soo wareega oo qof walba wuxuu sameyn jiray iyo meeshuu mari jiray ay soo qabanayaan niman isku xiran oo haysan boolis arrimaha yani boolisigeenii siyaasadda dibadda cirkaasay martay waana la bartay wafuud baa noo timaada nimankan Afrika inta kale anaga xoreynay oo يعني ciidamo anagu aan leenahay ayaa tababari jiray Mozambique iyo tagi jiray Angola iyo dagaalka wastiga dhan waxa uu ka cajaabay anagii waanaga shuuciyada galay oo markii maanta hub kala rabnaa anaga waxa noogu weyn wuxuu ahaa shanta Soomaaliyeed inaan gaarno maxay noqotay meesha ugu sareysaan gaarnay Afrika 1963 73 waxay ahayd taariikh yaab leh maxaa jira waxa madaxweynuhu diiday inuu aado shirka oo idin waa fadhida oo idin markaas waa markay cusub tahay markay xoogaa bay soo socotay qiimo weyn bay leedahay uu diiday inuu aado wuxuu yiri ajandada in lagu daro Soomaaliya arinteeda ma ahayn
oo dhulalkan ka haysto Ethiopia naga haysto Ethiopiankuna wasiirkooda arrimaha dibadda isla maalintaas wuxuu yiri wax aan qadiyad aan ka wada hadlay ma jirto ayaga laftooda Ethiopian oo aan sii deyn iska daayna wax deynay waxaynu Afrika waa shirku socon way waxa la soo diray madaxweynaha Nigeria dawladdiisu soo diray in madaxweynaha qaado laba shardi oo codsaday mid waxa weeye arin ajeedada lagu daro mid kalena next year 74 ka in Soomaaliya lagu qabto anagu dawladdu waxaan ka raacay maadaama ha madaxa Soomaaliya Ethiopia markaas aan tagnay waa markii ugu horeysay xeelad salaasaha live oo arkay aan salaamay biyaan waxa la sakan waa ninka qatarka codka weyn tacbaan oo ila noqday arsaasa ay hob inaysan idagay soo reeyay waxay noqotay special arintii waa la qaatay waa looga hadlay 74 kiin waydi oo iyadoo dhan isku timid Muqdisho meel aan kala geeyno mar guriyaha dadka la geeyay waxaan maraan sheekaysanay doctorka gurigooda dadkii dhaqnaabo ahaay wafdi waa la geeyay وفودي قار كمان أيام لكي قريه بقول توتي قاعد وياه وشرف أنجارناه وحا أهيد أفريقيا إن المامور له وحا أهيد أورو اللي شر اللي يري وحا لقبتي شركي لبعض أفريقيا لان يدك مدو لان يا فستك لو سمي مشروع أرتي لصوب النجاي يدها يدقن لصوب النجاي وفدي سوماليا عن عبد الوحان هجامنا وزير كريم الدبت عمر عرته أنا وحان هاد ورفافين أيام مثلاي لبدأنا مدح وهاي وبرئ أنا لسعودي نيجي تياتر كام مدح ذوها من السعودي ديورد عن راعي أنا ديورد بالوتياش وحاهاي سومالي أنا وطن مركز أفريقيا وحان قبل لنا زامبيا لحد البانسي مرة رواندا بوروندي كل وقت ما مرة إلا أن كتبنا لايكس ومدي أنه وفديا نروح قرادي إن أنا لاقوس كتقنو كدونا أو ماشي إسلام كأنه ذكيه بسطنا لسي قفك مركو لمانا واحد كلوي عبد عمر عرته أو مضح نوعها يردوا سورة وسير كها هنيجا أو أنت كلوتي إن الله راح بس كبيه واحد يقدر جعل لما أو واحد جعل المجالين كأركو هبين كمان حنوصل baabuurka meeshaan ka raaci lahaa nimankii raacay ninkii wariyaha ma aqaano madaxdu ahaa magaciisa ma xasuusto iyo shan wariyaal iyo ninkii baaloodka ku xigay intiiba baskii intuu hurdooday ninkii waday ayuu ku xijaabtay halkaas يعني فيستك بعيد that was يعني halkaas aan gaar laakiin gudihii maxaa waday waxaan horaan wadan qabiilka soo laabtay korobshika soo waxay raadkeeni waan ku laabanay waxay dagaalkii waa nagi galay dagaalku markuu dhamaanayo oo nala de ruush iyo balaayo baa soo duushay annaga ma ahayn wixii dagaalamay jabhaday ahayd oo jabiyay adunku ma dhawa garan kartaan wixii joogay wafdi waxa warfaafinta wax meelahum naga qolo waastiga waa naga xirmay shuucidi waa ka tagnay meel dhaxan soo istaagnay China ayaa dawladdu fikirtay in hub laga doonto loo tago waxa loo diray wasiirkii warfaafinta Abdi Qaasim anigu wafdigan kamida يعني waxa ajaa'ib kale anagu waxaan leenahay maxaa naga dumiyay ninkan wuxuu noo sheegay wuxuu aan u tagnay madaxweynihii ayaa naqaamay sida naloo qiimeynayo ninkii markaas haystay magaciisii doctorka Deng Xiaoping waa ninka China maanta siday tahay ka dhigay waa ninka China u soo jeediyay waxa shuuciye ahayd waa dadkeed balaaye ku sameeyay ninkan wuxuu yiri hanti wadaag Soomaa wuxuu yiri ninka مكلاشه مد مدو هي مد عاد أسفار أي قبائل يسوي شقة كرمني وأوكي حسب وما حرنا نك يسود الجو نرجع عبقرية أو فرنسيس يدوح بصوبرتي فيروسا فربوها وحير واحد يلي سام تلونسي وحير مانتي جاب وين بعدين قاري وحنا ذكو قاري قلا إيستنا لما هيستان واستنا لما هيستان وأنا اللي قبل ويبح بالدباتين وحي أنا بهم يروينين هنا لك واحد المترين وحيدين شيء لما أنت مدحوينها واحد جارسيسان فرينت دل
ciidankiisu soo jabay oo saano kale u jabay dowladdiisu sii ma jirto ee change sameeya isbeddel sameeya waxaan qabaa horta aas-aaskan halkan ka soo gala halkaasi ahayd ma la sameynin waxayna iska sii wadanay haddii wixii ka soo baxay waa ogtihiin 78 ilaa 91 waxaan dhaxagalay balaayadii dhacday waad ogtihiin waxay ka dhacaysay centralka laga bilaabay waxaa lagu tagay northka marka soona haddaan nahay nalooma ogoleyn wax ka baxsan dowladda warkeeda marka waan tumanayna xanuunka jiray marka waxaa xasuustaa waxaa la leeyahay maxaad qabaayil u noqoteen u midoobi weyn aniga reality-ga ayaan ognahay waxaan nahay dad qaybsan qabaa'il ah qabaa'ilka mar dambe idiin sheegi doonaa dowladnimadii waxaan ku bedelinay qabiil baan ku duwanay waxaan dhuminay wax kastoo qiimo lahayn ayaan dhuminay patriotismidii yani wadanninimadii jacaylkii ummadeennii isla tuman jirtay waa rabshaana kala dhex gashay marka catow ayaan ku jirnaa iyo maxaa jira waxaan ka cabanaynaa wixii nala gaaraysay dadku waxay leeyihiin maxaa marka laakiin qaarkiin uga samri la'ay waxay uga samri la'yihiin dowladnimadeennii iyo xooggeenii ayaan la isticmaalay isku burburin waxaan isku burburinay dowladnimadeennii iyo sharafteen waxaan ku burburinay inaan maxaanan leenahay qaran dumis weeye hadday qaran dumis ahaayeen ayagii aan burburinay maxaa ka soo baxay dhibaatada nagu dhacdoon ka samri la'ana waxa weeye marna dowlad jirta ayaan badbaadinayna ayaan dad ku leyn markii dambena midaanan jirin inaan abuurno ayaan dad ku leyn islayn lee noo soo hartay marka labadaba dowladda dhisaay mid dhisan duminteed iyo midaanan jirin ayaan ku dhammaan maxaa burburay waxaa burburay hal identity-geeni wixii ilaahayna siiyey diintii naga dhexaysay afkii naga dhexeeyey yacni historyga naga dhexaysay culturekii wuxuu dhan baan burburin maxaan bedelnay waxaan raadinaynaa kan waa dheer iyo anu waa gaabana inaan waxyaabo minima oo qiimo lahayn inaan isku kala soocno soo ciddaan ka badinay wadajirkii anigu waxaan qabaa Soomaaliya maanta waxaa ila tahay idin sheegay waxa weeye waa dal ummad ay bililaqaysteen dadkii ehelka u ahaa inay badbaadiyaan cadowgiina ka faa'iidaystay saaxiibadii aan carabta la islaamka la ahayn iyo kuwii kalena na tuureen annaga ayay marka dhibtu naga tahay waxaan isku geysanay ayaanan haysan laba shay baan haysan qabiilkii oo anigu qabiilka waa idin sheegayaa maadaama aan siyaasadda cilmiga la bartay qabiilku wuxuu ka mid yahay 3 qaybood oo bini aadamku u yahay isku aruuriyo koox u noqdo qoladkan waxay yiraahdaan interest group mid waa qabiilka kaas waa kii ugu horeeyay oo qofka dhalasho lagu haysto midna camalka ama warshadaha aado ama beeraha aado dad camal isku bahaysta weey kuwa kalena waa kuwa ideology fikrad diin ha noqoto ama fikrad ha noqoto saddexdaas loo waxaystaa annaga stage-ka aan joognaa waa kii qadiimka ahaa waana wax fiican oo ummadu isku wado oo qiimaheeda ku muujiso maanta ma jirneen haddaanan kaasaysan labadan kale ma gaarin inaan isku cayno oo bala ka dhigno maaha inaan ku nafisno anigu reer hebel baan maxaa jira waa part of interest group maxaa marka bedelay ma gaarin midaan fikrad ku qaybsano haddaana gaarin inaan bahal ka dhigno maaha waxa laase xaqiiqada waxay tahay tribalismada waxaan u dagaalamayna oo aan u dhilimanayna markaan dowladda ka soo horjeednay waxay ahayd cadaalad darro iyo qabyaalad iyo corruption iyo iimaan darro aan isku waxaynayno qabiilkii haddii la waayo waxay dhaleen baan raadinaya taasaan la dagaalamayna marna kuma dagaalamin resources iyo power saa u qaybsanayn macna nooguma jiro maxaa jira ma heli karin tan hadda la sameeyo 4.5 ka leeyahay anugu kuma jiro number mali
محاجر دتك وحنا عنو إنتان وحاتين كل جيم بانو محاجر الصومالي قبيل كستله يعني ده يعني هاي 4.5 مجرد وحاران بين لك شيء ما قرأت وحنا جمعنا ورادين إنه حوي عدالة سنان شرع قرطيس اسكن حريشة يومانتي أي رادين أنت الدين تقبته أي رادين وحيابة عجائب كانوا حوي واستجن منك وهدرلك وعدالة بدن ما أنت أدون كتير يعني عدالة ما إن بقولك يا بقول لك هو سيسو حريري أنت عرك كهوسيسا أو إلهك كهوسيسا عدالة مجرته لكن ولوك لهم واستجن أقوله عدالة دو لا قارمة مركي جذوه ذا تاي يبدو معها عدالة يبدو عدالة معه واحد يبدو استعمال عدالة معه أنا جا واجن دولة هاين يبدان كحوق الهاين جذانا واسكت حجرنا واسقسين واسجبنين وحنقول من عدالة دران سنان الآن يقول من أوضيال قبيلك وحقوق يبصدا ومرد من وحالدين شيء قبيلك متحم بابا أنا كان حتى قبيلك ما وقت قرادي نقطة حرفدي ستقانا نمك عربتها وأنا في عين محاجر قبيلك ما يقال وين استجابيين القبيل بالوج يا وديس هدي أتكتين يمن قارباتين جاري يدور ذله قبيل هبل يراد قار كان وحلين لكن قالوا ببوسيش كذي يقانا أنا ببوسيش من كل دقالكم أذكر أركانه هذاكم أذكر أركان ما كان رين محاوي مركا قبيل كاس ها مركا waxaan u baahanahay principles kaasaas waxaan idin sheegayaa 30 sano kadib on dawlad ka soo shaqeeyay oo aan madax ahaa oo siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiray qabiil ma noqon karo dawlad قبيل من نقول كردو فورو تسكب دافع واحد قبيل لو مثلا كردو دولة وحالقول يسكرها عدالة يسنان يونك وحيابها إيمان لسي دنعسي واحد قبيل قبل ذنا وقبيل كيو عيلي وناحي محاجرة واجي هو لبدي قلو استررته واحد يجنا رير بلو استرر هذا الدولة ده استرر دولة هبل كيف أنو عيلين قبيل ملكم مقارن إسلامي values وأتقانا وعدالته وسنانته وناجة أما أنقله أما صدق سنة ونسوجرني وهراء وحن كجرني سؤال وين وحلا يراد حوله إنك وحصوصتها أنت حكمته ووزارة ورفافين تكملها بدودود أما NFD وكيم أما إثيوبيا وكيم أما جيبوتي وكيم ومحاجر أنا وقير يسنا وصومالي أنا بإنجليزي كما كان جلاي كي كان فرنسيس متبع جلاي صومالي بحالكاس صدنا سنة أيام دولة نمديني إلى قالهني يحوق ينسكوكين وحي نور لسه كوي درس كا إننا نعام أو نوتشتا أو نوم ذوبان الدون كنا نفرحنا كلامهم محاجرة دولتها والله مالا دولة دواسلك وقف شخصية وإحنا لا أقم كلام لواي وحين قاسي عدو بنقول اسم صدق كيس أنا هذا دم حوله إني ينتظرني وحنكون بحنا سأل سوق قيبني حوجا جنيسني سأو كردادين لين هذا أنا لقيت تجين ما يشاء أن كجر رمانتي وحنوب بالله ميسا صدق بنسوق عني صدق كله وأن كدرنا الحدود كان ياله غير كده كجره إيه كلا ضوء كله إسلام كأولى من إيمان كنا أولى من وحن إذن لا أنا قابل الغيسنا نسوعين وحن كفر أحسنه كوي عدو شرع عدو ما همانت يعني مسكح لو قال لكن إثيوبيا تي ما وذوك تنشنش بكداي تنشنش بكداي دلالكي أنا وأنو دجالة مجرني تذكر أودو أيها ما أنت ندعمه الدون كينا قالوا ما ماشي إسكوارت وحوار مجرى ما أنت مال بنوبلان إثيوبيا كينيا أنا ولا لهم وصاحبهم ضدك نوجي جرانا وبريش كبيس كنوك إسكو كيلين حقنا كجرنا حق كجرنا أنا جاي نودنت
aan gallo aan la qabsano taalibaan qaadno waxa aan ku jirno oo ninba ninka qabiilku waxa kali uu na gaarsiinaya markuu siyaasad noqdo wuxuu na gaarsiinayaa waa sii wada lahaa laakiin waxa weeye qabiilku kala qaybsanaan iyo joogto dagaala kusii jireen waxaan kusoo gabagabeynayaa adinkana inaan wax ka sheegaan rabay laakiin waxaa maanta iskale raggii ila socday marka waxaad yeelaysaa meeshaan dhibaatada waxaan arkay waxa weeye laba hay-adood baa jirto maanta aan ku tiirsannahay wax qabta waa masaajidada iyo ururada masaajidada iyo ururada wax qabanaya fard ku tilmaankoodan waqtiga ku dhamayno waninkii nimankaas wax ku darsanaya ha ku darsado kii wax iyaga ku laciif yihiin yaqaan ha bedelo ha galo midka kale oo wax kale la yimaado farku fiiqa iyo isdabaqabsiga ka daala qabiilkana booskiisii siiya haddaan qabyaalad ku dhisno 30 masaajid oo ay ka faa'iideystaan 30,000 oo muslimiin ha fiirina dadku maxaa jira ma isku imaan karno beeskeena asaga ah magaciisa iyo sharaftiisa waxa weeye wanaagiisa aan isticmaalno dadkana ku qaybtano waxaan ku soo gabagabeynaa ururka waa dhaweyd waxaan isiri wax sidii uu loo wareeray wadaad ilaahay soo diray sheekh maxamed dirir la yiraahdo ayaa masaajidadii yani ma ilaahay dadku waa kala waxay u helay inay midoobaan maalintaas raja ay gashay oo waxaan isiri bas weey marka hadii wadaadadu noo waxaystaan halkaas ka socono waxaan soo marnay ogtiin abaarihi inta la marnay ogtiin waydii dhibaato ka dhacday xagga gobolada kale yani xamar waxa markaasaan abaarihi xagga haday dhamaadeen kuwa dhalinyarada wax ka qaban waxaan rabay inaan ku soo gabagabeeyo ururkii waxaan eri ururkan waa inuu noqdaa urur ay community leedahay oo ownership-ka anagu wixiisa aan la baxno maxaa jira haddii aan dawladda ku xirno kuwii kale kama duwanaanayo dawladda shuruud bay la imaanaysaa advocacy waa rabaa in hadallo oo dadka halna ka qabto ilmaheena inta la dilo in la waayo wixii dilay inay isdilaan oo la yiraahdo wad ogtiina keena annaga naloo diro ayaa jirta aan wax qabsano waxaan se idin sheegayaa ina waxaan dhibsado waxaa ka mid ah wadaadada يعني إني مساجد كعليسك كسر كبدون وين لكن أي هلي كران أنت عليس كويس مان أنت كلين استعمالان من نقول مساجد كوحكة الصعدة قطبة الدين يكتاب وحفي عنه لكن وحن موذي الدين إني فري سوكله ومد أنت كلون سان إيمان اللوتو كوريها اللوتو دad كان حراضي waxaa la noqday ninkii cilmi lahaana waa ka baxay wuxuu yiri anigu Soomaali ka qoust yaana la qoossan waa isku baahannahay ummadeenu jiritaankeedu wuxuu ku xiraan doonaa ilmeen soo badbaadi marka waa dhowr jeer baa la celiyay laakiin wax kale sii rabay ma ku sii wadaayo adiga waa idin turayaa waxaan rabaa aad iyo aad horta inaan ku mahadiyo waxaad iga sheegaysaan iyo waxaan ahayba inta adiga sheegtaan baa ay taabanaysa waxaad ogaataan intaas in ka fiican oo ku jirta isku dulqaadan aan isbadno waxaan si gaar ugu mahadinayaa guddigii arrintan inta badan la soo waday soo dadaalaya ku dadaalaya waxaan idinka codsanayaa kulligiin caradii inta marmarka iska caroodo ninkii gacanta xumaanta iga tirsanaya ilaa cafiyo anigana cafisba iga tiin waxaan idin rajaynayaa maanta in idin noqoto taariikh aad ku xasuusataan wadaadkii 70 jiro noo yimid mar inaad ku xasuusataan wax ku qabsataan khayr Allah idin siiyo Allah idin barakeeyo salaamu calaykum